haddii rabbi xukumo waxaynu wax ka sheegi doonaa dersi koobana ku saabsiisan ibtilaa'aadkii ama imtixaankii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu mariyey nebiyullaahi ibraahim inagoo og maanta muslimiintu waaqaca ay ku nool yihiin iyo dhibta haysata iyo wixii laga rajaynayey oo ilaahay qur-aan ku tilmaamayo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ummaddii dadka u khayr badnayd ee ilaahay dadka u soo saaray inay yihiin wakadalika jacalnaakum ummatan wasata waxaasoo ammaana iyadoo qur-aanka ay ugu taallo iyo mustawaha maanta ay dadka muslimiintu joogaan iyo sida ay u jabeen waad mooddo inuu xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee thawbaan uu warinayey abi daawuudka ku yaalla oo runtii aan odhan karno waa mucjiza min mucjizaati الnabiy calayhi الsalaatu wasalaam sheegaya wadci ay muslimiintu gaadhi doonaan yuushiku اlumamu an tadaca calaykum kama tadaca alakalatu ilaa qascatiha uu nebigu tilmaamaya inay wakhti dhici doonto dadka muslimiinta ay isugu yeedhan doonaan sida xeedhada dadka wada cunaya ee wada leh casuumadda isugu yeedhaan saxaabadu su-aal bay weydiiyeen ma yaraan waayo saxaabadu iyagoo yar ayay dunidao dhan iska celiyeen labadii dowladood ee dunida ugu xooga badnaa ee waagaa jiray Persia iyo Romans waxaan kontaneeyo sano dhammayn bay kaga takhalluseen oo ay ka taliyeen dunidii markii la deganaa intii ugu badnayd dadkii hamigaa siday ama xooggaa lahaa markii la yidhi waa laydin boobayaa oo sida loo cuno xeedhada loo wadaagaa laydin wadaagayaa su-aashay nebiga weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam ee madaxooda ku soo dhacaysa in waxa weeyaan ma intay madhaan oo yaraadaan oo wax yar noqdaan baa markaa la boobaya waxay idhahdeen wa min qilati naxnu yowmaydin maalintaas ma maalin aanu yar nahay oo dee baaba'nayba nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam tiro hadday tahay bal antum yowmaydin kahiir buu nebigu yidhi tiro marka laga fekerayo maalintaasi waa tiro badantiin buu nebigu ku tilmaamay laakiin waxaad tihiin guhaa'un ka guhaa'i sayl daad xoorta daadku sido daadku markuu socdo xashiish iyo waxbuu soo qaadaa waxaasi wasni ma leh oo ma dhaadhacaan shakli ma leh oo kolba meeshuu daadku maraa unbuu midabkoodu noqdaa laantii wale daadka soo gashaaba badh bay la hadhaa yacni waa dad aan wasni iyo macno iyo qiimatoona lahayn bay noqon doonaan buu tilmaamaya waxaa kaloo nebigu ku tilmaamay markaasi waxa dhici doona waxaa ka mid ah cabsida gaala idinka qabta baa ka bixi doonta walayanzicanna allahu min suduuri caduwikum almahaaba laydinkama cabsan doono waxaa kaloo dhici doonta buu nebigu yidhi idinkana wahni baa laydinku soo tuuri doonaa wahnigu waa kelmad carbeed nimankanina carab quxa bay ahaayeen waa yaqaaneen haddana waxaad mooddaa masaladu inay midmadow gashay oo ay markaa nebiga weydiinayaan wahniga kani waa noocma wuxuu nebigu ugu tilmaamay markaa wahnigaa idinku dhici doonaa inuu yahay adduunyo jacayl iyo geeri nacayb yani maanta muslimiinta dhibta haysata iyo mashaakilkay taagan tahay waxaa maqashaan hadda magaalo ghaza la yidhaahda iyo waxaa ka dhacaya ghaza inaad ka warhaysaan mooyaane waa meel ballaceedu 5 mayl iyo badh meelaha ku dhadhowyahay ballaceeda gebigiisuba dherarkeeduna waa 25 mayl marka laysku wada daro waa 141 kilomitr oo isku weer ah 141 mayl oo isku weera weeyaan waxaad qiyaastaa meel 141 kilomitr mayl oo isku weera ah oo adduunka wixii gaal joogoo dhammi tumayaan
wixii hub la haysto dhan lagu garaacayo muslim oo dhamina daawanayo bale daawasho qura maahee ay u xejinayaan oo hayaan xagga ha ka bixin oo xagga ha ka bixin oo god yar haddaad qodato ha lagaa aaso oo meel laba cid ha kala xidhinin iyana ay ma codayiin waxaana siday u dhaceen waxay dhahdaan sida uu tilmaamayo khabiirka cabdalla nafiisi la yidhaahdaa wuxuu leeyahay muslimiinta iyo reer galbeed 5 marxaladood bay isla soo mareen buu leeyahay marxaladda koowaad waxay ahayd buu leeyahay waa maxadat alcunfi wa kasri alcidaab oo madaafic iyo dil iyo wax walba waa lagu laayay waa markii iyagu isticmaar bay inoogu sheegaan waa markay gaala soo duushay faransiis le ingiriis le holandiis le jarmal le yurub oo dhan oo waxay hub haysatay wadata iyo caalamulislaami ku soo duushay talyaani le meel walba leh muslimka markaasi madfac baa lagu tumay iyo wixii hub la hayay waa la lafajabiyey markii la lafajabiyey kadibna marxalo labaad la galiyo la yidhaaha marxalatu tajzi'a wa taqsiim awal waddan muslim oo isku furan bay ahaayeen oo cid walba cidda kale u heeliso waa loo kala goobaabeeyey idinku reer hebel baatiin halkaa ma dhaafi kartaan idinna reer hebel baatiin halkaa ma dhaafi kartaan magacyo cusub oo aan jirin ayaa loo bixiyey inta goobo yar loo xarxariiqay marxaladdaa markay soo dhaaftay oo ah yacni sida hilibka loo qaybsaday oo inta shir la isugu yimi la yidhaahdo hebelow adigu intaa qaado ingiriisow intaa qaado faransiisow intaa qaado talyaanow intaa qaado sida xoolaha loo qaybsaday kadib baa waxaa soo baxday haddana marxalad saddexaad buu leeyahy oo ah marxalatu taqriib in caqaa'idda iyo afkaarta iyo dadku waxay rumaysan yihiin la bedelo في التعليم والإعلام والاقتصاد والسياسة وصناعة النخب وكل شيء إن لبدلوا أمضي مسلم كهيدا مركو هوري الدين ونرميسري حتى هدم بابته دين قريب رميسري حكا لو أجرى والله سكو معمولا ما يرميسري وحا الله شاقا تعليم عن تعليم كيدي أهين إعلام عن إعلام كيدي أهين اقتصاد عن اقتصاد كيدي أهين qaab siyaasadeed aan qaab siyaasadeedkeeda ahayn waxaa loo abuuray nukhab dad maamula oo hogaamiya oo dadkaasina ay yihiin ninba ninka uu ka badiyo afka gaalku ku hadlo inta ku hadasha ay noqoto cidda maamulaysa marxalo afraad baa la soo gaadhsiiyey buu leeyahay muslimiinta oo ah alilxaaq aliqtisaadi dhaqaalahoodu inuu ku xidhnaado dhaqaalaha waddannadaas oo iyaguna raw materialka laga soo qaado inta lasoo hagaajiyana dib looga iibiyo marka kaasi hadduu kaa iibsan waayo waa baktiyaysaa hadduu inaad dhaqaalaha waddannadan oo dhan ku xidhnaato intaa yar maxado shanaad baa la soo gaadhay maxadadatani waa wadcigu inuu sidaa